meel ma wada galaan waxa la yiraahdo cuqdada calal ku haynta iyo horumarka iyo halabuurku si kala hadii aan u dhigo hadii aad han weyn tahay oo aad meel fog oo sare u socoto isku day inaad noqoto qof calool xaaran qof furfuran oo bashaasha oo aan cidnaba caloosha waxba ugu haynin sababtoo ah waxa jiri doona dad yow fara badan oo dhaliili doona shaqadaada iyo adigaba isku day doona inay hoos ku qabtaan oo ay ku xigxigtaan dadkaas wax alla wax xumaan oo caloosha ugu qabatay yaani jirin sababtoo ah xumaanta aad caloosha ugu qabanayso iyo horumarka aad doonaysaa waa lib isku yihiin oo isma qaadanayaan dadkaas iska cafi adiguna hawshaada iyo qorshayaashaada hirgasho oo mashaariicdaada ka shaqee maadaama aanay meel wada gelin cuqdada iyo halabuurkuna dooraha halabuurka iyo horu socodka iskana ilow dadka kale inaad ku mashquusho oo aad xamato caloosha wax ugu hayso aad ka sheekayso sideedaba aqliga bini'aadamku waa saddex baa la yiraahdaa ka ugu hooseeya bini'aadamka iyo dadka uu ka warrama ka dhaxina waxa uu ka warramaa ahdaafta umuuraha iyo dhacdooyinka halka ka ugu sareeya aqliga bini'aadamku uu ka sheekeeyo afkaarta mashaariicda arrimaha waaweyn ideaska iyo aragtiyaha ka damba noqo isku hawlin inaad dadka kale aad iska difaacdo oo aad iska celiso ku mashquul shaqooyinkaaga I love you so much. Thank you.